السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada asxaabta. sida aad wada ogtihiin waxa inoo socday taxanihii aynu kaga hadlaynay wadamada caalamka. waxaynu muuqaalkan kaga hadlaynaa xaqiiqooyin laga yaabo in aanad ka maqlin dalka Oman, balse daawada inta aynu muuqaalka gudagelin haddii aad kanaalka hore ugu xidhnayn, fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela muuqaaladeena. saldanada Oman waa wadan ku yaal xeebta koonfur bari jasiiradda Carabta, ahna galbeedka qaaradda ugu weyn adduunka ee Aasiya. waana meel istiraatiiji ah oo ku taala afka gacanka Beershiya. waxa ay xuduudo dhulka ah la wadaagtaa wadamada Imaaraadka Carabta, Sacuudiga iyo Yemen. sidoo kale waxa ay xuduudo badda ah la leedahay wadamada Iiraan iyo Bakistaan. Oman waxa ay ka mid tahay meelaha ugu qadiimsan caalamka. Boortaqiiska ayaana qabsaday dalkan 1 Abriil 1515, waana wadankii ugu horeeyay ee xornimo qaata wadamada Carabta. dalkani waa dal ku dhisan nidaamka boqortooyada. sanadkii 1749 qoyska Aala Saciidis ayaa xilka la wareegay, waana mid ka mid ah qoysaska ugu waqtiga dheer bariga dhexe. in ka badan 95% dadka dalkan waxa ay awoodaan qorida iyo akhrinta, waxaana xusid mudan in jaamacaddii ugu horeysay wadankan laga daahfuray sanadkii 1986 looguna magac daray Suldaan Qaabus oo ahaa suldaankii ugu waqtiga dheeraa. Oman waxaa loo yaqaanaa meesha ugu fiican ee lagu ilaaliyo shimbiraha, sababtuna waa in laga helo shimbiro ku nool qaaradaha Aasiya, Yurub iyo Afrika. dadweynaha dalkan waxaa lagu qiyaasaa 5,223,375 qof. marka laga yimaado dadka Omaaniyiinta ah, dadkaas badankooda waxa ay ka yimaadeen wadamada India, Pakistan iyo Sri Lanka. ka hor 1970kii dalkan ma lahayn wax hoteelo ah, laakiin hadda waxaa ku yaala hoteelo fara badan oo casri ah. ma ogtahay in caasimadda Oman mar loo raray qaaradda Afrika lagana dhigay magaalada Stone Town oo ku taala dalka Tanzania. Oman waxa ay ka mid tahay 27 dal ee aan lahayn tareen. 27kii bishii August 1896 Oman ayaa gashay dagaalkii loo yaqaanay Anglo-Zanzibar. dagaalkaas oo u dhaxeeyay Oman iyo Ingiriiska, waxaana lagu tiriyaa inuu dagaalkaas ahaa midkii ugu gaabnaa ee la diiwaangeliyay taariikhda, waxaana uu socday waqti aan ka badnayn 40 daqiiqo. astaanta qaranka ee dalkani waa toorida khanjar iyo seefo isweydaarsan, waxaana ay Oman qaadatay astaantan qarnigii 18aad. Haytham bin Tariq Aala Saciid waa suldaanka ka taliya dalkan, waxaana uu xilka ka reebay Suldaan Qaabus oo ahaa hogaamiyihii ugu waqtiga dheeraa bariga dhexe iyo dunida Carabtada. waxa uuna xukunka hayay muddo dhan 50 sano. dadka dalkan waxaa lagu qiyaasaa 309,501 kiiloomitir isku wareeg, waxaana ay noqotay wadanka 7aad ee bad ahaan ugu ballaadhan caalamka. Muscat waa caasimadda dalkan, waxaana ay noqotay sanadkii 1973, waana magaalada ugu shacabka badan, waxaana ku nool dad ka badan 1 milyan iyo badh. Oman Riyaal waa lacagta rasmiga ah ee dalkan.